golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa ay hadda ku leeyihiin kulan xasaasi ah oo lagu horgeeyay xeerar ay madaxda maamul goboleedyadu muran ka keeneen. Shirka oo wali socda ayaa lagu soo waramayaa in sharciyadii la geeyay midkood la meelmariyay kuwa kalena wali ay doodoodu dhiman tahay. Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa si dhow la socday. Cabdiqani, maxaa ka socda golaha shacabka? maxamed axmed waad mahadsan tahay. kulanka golaha shacabka oo maanta ah mid xasaasi ah marka loo fiiriyo kulamo hore, iyadoo la horgeeyay ajendayaal ay qayb ka tahay u codaynta xeerka lagu dhisayo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo dad badan ay horey u sheegeen in dib u dhigis lagu sameynayo lagana cagajiiday. sidoo kale warqadda shalay baarlamaanka lagu ballamiyay waxaa ku qornayd in akhrinta saddexaad la marsiinayo wax ka beddelka sharciga betroolka iyo ajendaha saddexaad oo ahaa akhrinta koowaad ee hindis sharciyeedka doorashooyinka. marka loo fiiriyo labada xeer ee u dambeeya ee kan sharciga betroolka iyo sidoo kale midka doorashooyinka ayay madaxda maamul goboleedyadu waxay ka qabeen dood badan oo ku aadan inaan wax la tashi ah lagala sameynin, islamarkaana xukuumaddu ay dedejinayso. baarlamaanka markii kulanka uu furmay in ku dhawaad 160 xildhibaan ay xaadireen ayaa saacado kadib ama daqiiqado markii baarlamaanka uu furnaa waxaa soo baxay warar sheegaya in la meel mariyay sharciga betroolka ee ay ku qorneyd in akhrinta saddexaad la marsiinayo. baarlamaanka markii xildhibaanada qaar aan la xiriiray waxay xaqiijiyeen in 150 xildhibaan tiro gaaraysa ay sharciga betroolka u codeeyeen, 4 xildhibaan ay diideen. sharcigii ama ajendihii ku qornaa in codaynta la marsiinayo sharciyeedka dhismaha guddiga musuqmaasuqana dib loo dhigayo haatan ay ka doodeen. xildhibaan Farxiye Muumin ayaa ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee hoolka ku sugan. goordhow ayaa iyadoo kulanka uu socdo aan wareysigan kooban la yeeshay. oo koromkii ah oo si maaragtay gabadhaana loo ansixiyey oo fiican. sharcigan runtii waa sharci dalkeena anfacayo, dadkeena anfacayo, runtii loona baahan yahay in aan ka faa'iidaysano kheyraadka dalkeena ku jiro, midka ku jira carrada hoosteeda iyo midka yaallaba carrada korkeeda. kheyraadkana runtii wuxuu ka mid yahay betroolka. intaan nolosheena xasuusana waxaan wada ognahay in dhulkeena ay ka buuxaan shidaalo ama macdano kala duwan ay kala jirto, haddana ay gaari waqtigii aan soo saari lahayn, waqtigii aan ku anfici lahayn. waxa kaloo jiro oo adduunka dhan ka jira waxay tahay in laga guuraayo shidaalkii oo loo guuraayo waxaa la yidhahda green energy la dhaho. marka inta aan haysanaba waa wax 20 sano, marka 20 sano kheyraadka dalkeena inaan ka faa'iidaysano muhiim waaye. waxaana aad iyo aad uga mahadcelinayaa runtii wasaaradii soo diyaari. waxaad ii sheegtaa ajendaha sida ku qornaa waxaa horeysay in loo codeeyo hindis sharciyeedka dhismaha guddiga musuqmaasuqa. marka ma waxaa laga soo hormariyay wax ka beddelka sharciga betroolka oo la ansixiyey? maya ajendaha sidaas loogu yiilay, sababtoo waxa waa kan kaleeto dooda dheeraa la gelayaa. kana midaan kasoo doodnay oo diyaarsan buu ahaa. xeer hoosaadkeenaana noo anfacaayo inaan ka sameyno. hadda sidaa maqlaysida baarlamaanka waxaa ka socda runtii doodii oo lasoo jeedinayo wax ka beddelkii sharciyeedka guddiga musuqmaasuqa oo muhiim isaga laftarkiisa noo waxay ahayd xildhibaan Farxiye Muumin oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. xeerkan hadda aan si gaar ah u sii eego maanta baarlamaanku uu meel mariyay ama golaha shacabka ay meel mariyeen betroolka ama xeerka shidaalka, muran badan ayaa ka taagan marka loo fiiriyo madaxda maamul goboleedyada oo wararka ka soo baxaya shirka Garowe ay sheegayaan waxyaabaha ay dhaliilsan yihiin ay qayb ka tahay qaybsiga kheyraadka, gaar ahaan sharciga betroolka ee golaha shacabka la horgeeyay, isla markaana madaxda qaar ay dalbadeen in xukuumaddu ay dib u soo celiso laga wada tashado kadib baarlamaanka la horgeeyo. isla xeerkan dadka wax falanqeeya iyo siyaasiyiinta qaar ee dhaliilsan waxay xukuumaddu ku eedeynayaan in ay dedejinayso, isla markaana ay ahayd in la tashi badan dadweynaha iyo axsaabta iyo dadka intiis kale lagala sameeyo. ajendaha waxaa ku qoran in betroolku maanta uu marayo akhrintii saddexaad. taas ma laga boodo? guud ahaan xildhibaanada oo ilaa iminka qaarkood ay yihiin kuwa ku mashquulsan kulanka weli soconaya awgii, inta aan la hadlay waxay sheegayaan in la ansixiyey kulanka aan yidhahdo sharciga la ansixiyey, halkii akhrinta saddexaadna ay noqotay in laga dood kooban laga yeeshay kadibna la meel mariyey. sida waa loo codeeyey 4 xildhibaan oo keliya ayaa diiday, in ka badan 150 xildhibaanna way ansixisay. guddoonka baarlamaankana sida xildhibaanadu ay sheegayaanba wuxuu ku dhawaaqay in sharcigaasi uu yahay mid ansax ah. haatanna waa laga gudbayo dooda haatan soconaysa maxamedow waxay ku aadan tahay u codaynta sharciga lagu dhisayo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa. sidoo kale isla kulankan waxaa golaha hor yaalla xeer kale oo ka mid ah kuwa dooda adag ay ka taagan tahay madaxda isku khilaafsan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo aan midka doorashooyinka. sidoo kale axsaabta siyaasadeed ayaa aad xeerkan u dhaliilsan.